maalin dhaweed waxaad arkayseen oo aad looga soo qeyliyay Twitter aan soo dhigay oo aan si toos ah oo aan ka gambasho lahayn aan wasiirka gaashaandhigga aan leeyahay madaxweynow ha keenin meesha la yiraahdo in maxas maxay tahay sababtaas maxaan ku maagay wasiirka koow wasiirka waa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya horteeda waxa confusion ka jira militariga uniformka qaba iyo siyaasiyiinta wasaaradda gaashaandhigga xiriirka ka dhaxeeya Soomaa macnaha si wada shaqeynayaan waxa la rabaa marka wasiirku inuu ku ekaado dejinta siyaasadda difaaca la xiriiridda beesha caalamka yaba raadinta dagaalka la xiriiridda wasaaradaha kale oo amniga iyo arrimaha gudaha waxaas waa shaqadiisa wax siyaasadda wasiirku wuxuu bilaabay welina wadaa inuu intuu hierarchy kala sareyntii ciidanka intuu xagga iska dhigo taliyayaal guuto iyo taliyayaal urur iyo taliyayaal bataliyano inuu la hadlo wasiirku wuxuu sameynayaa taliyihii ciidanka amaru bixiyay inuu yiraahdo beentiisu waa wasiirku wuxuu sameynayaa madaxweynaha inuu been fartiino oo yiraahdo madaxweynaha saasiri amarkiisa waa wasiirku amarro uu baxshay iyo amarro baxay oo inuu joojiyo ay ahayd iyo xog qaldan oo madaxweynaha siiyay iyo been fartiimid oo madaxweynaha been fartiinay ayaa xasan tuure iyo ciidankii danab galcad ku ووجهي كوبادة دجالك. سومان. وجهي كوبادة لقى سوق. ها. واي. أوكي. تالياشي أقون تلاهايو جوجا. يا إنت الله هذا وحلا ليه هاي ساس يلا حلا يلا ساس حلا يلا. تالياشي يقايلنا ميلتريجا. أو ده هاي ورمشان عيدا من لبد جيكرو. ورعيدا كسف بلارنها أصعده. ورعيدا كهيز قرب صدو. ورعيدا ك. أيها دي من عيدا كتوسوين اللي تجي. سببت وزيركو أدوين ولا دجال معي إبراهيم شبعدين ولا دجال ما أسيق بقرشاق وحو تامحيه أنا يلا بعتن مع الموضوع سوجوجي إن ماشي اللي دول سمر وحنا هاي حد وزيركو إنه وروحه يبتلينه فرنتي جوجا تلياشو ده لعق قريبنا لبعتن كون كشان كون لح كون طبعا كون وجددوا كلها محيتها وزيركو وحس مركب ما أجمع الدولة إيه كذي محو كودا كو انتو سكا كان العقتان أجندو وتسمحيين محاس عيدن قليي إن وحاس مركب معلومات هذه في معلومات مرحبا أنت سكبدن إنين إيران سووا أنت سكبدن دان إيران عدوغا كفر حياة وحكون ماتي تليه نبص جدا يقدميه محكمة إذا مدى ميلتريجا حقو أسوق بحيي أمر أسوق بحيي إني هالس دقيقة ذا وقالين نفتود إن اللواء سيداس تردد إن أنا قبل ما كأمسكر فيري الحاجة على قاتي وحبا على كرهب تجري وحبا وحس وحبا يجي مقلي نفل وقمارة نفل وقمارة واي قلعت يعوس وين محاك دحين اسكو نقشد واي تالي فيري أدواي ونولي هاي تليو هاي سوما وهل ويديو أوامر ميليتري أي سوجيديين أي أوامر أي بحيين يا وزيركو أنت أوفررايد جريو ديدي دجالك وافر سمع محاكا قال وزير إسكدف وحي علد جرتواي هاي سوما تدا وحي إيرهن المحاوة هاي نكاس رحوين نبتكم باقيسا وأنا قبيل كان كدشوا حوادل أنا وكرحوين أنك السياحي 60 سنة halkaasaan ku noolaay ilmahayga dhaleen wax colaado uma qaban raxweyn hadda waxaan ku sheegi karaa 20 ka dadnimo fiican oo ka aqoon fiican oo ka sarkaalsan oo ka wasiirsan oo uga fiican boosku ku fadhiyo waay madaxweyne qaladaadka oo dhacay hadda aad ka sheekeynayso qaladaad waa weyn waana muuqataa waxaad leedahay galcadna macluumaadkii aan ka hayno waxa weeye dhibaatadii dhacday oo askar badan ay ku dhimatay oo ahayd musiibo weyn ugu weyneed jabkii ciidanka gaaray iyo cows weyne inay isku mid tahay isku meel ka timid isla wasiirku uu ka dambeeyay
eedahaasoo lama dhigi karo eedo waa weyn waay walaalo waa ku baryaa walaalo waa ku baryaa intaas ka badan cadowgaa ku raaxaysanaa iga dhaaf laakiin eedaha intaa la eg maxaa lagu xaqiijin waxa fiiri wasiirku inta soo goosto kiis ha igu soo dacweeyo qadaf maxkamad ha iga dacweeyo soomaa waa iska difaac kara maxkamadda waa haysaa waxa loo baahnaa macluumaadka qoraal masajaad la ii soo diray oo qaarkood ila wadaageen dad hadda ina sheega aan rabo yaan hayaa codad duubanaan hayaa ama rabbaxayaan hayaa ina adeerow hoosa usii gelinin madaxweyne meeshas ceebtaasa ka jirta hala saxo madaxweynihii waddanka dhuusamareeb uu tagay waa duulay hubkiisuu qaatay saraakiishiisuu qaatay wasiiradiisuu qaatay dowladnimadii meesha la tagay in maanta dhuusamareeb laga soo noqdo oo maxaas la yimaado maxaad ku fasiri lahayd maxaas markuu madaxweynuhu soo aadaya adigana xodogaalaad kulley u tahay xawaaluhu waa gadoodeen qaar waxay dhaheen wixiina lagu sameeyey annagoo og tabashadeennii hirshabeelle kanay ahayd lacagta la baxshay annaga baana waxaasaa la yidhi dad waaweyn oo duubab leh oo nabadoonna leh oo siyaasiyiin leh yaa u gurmaday oo yidhi war niman yahow wixii kaloo dhan markii lasoo dhaafay shabaab iyo annaguma ixsaanaa noo yaal maya shabaab in laysla gacan saaro lama rabo haa haddii hadda muxuu ahaay xoogaa momentumkii soo noqday intan cid nala gacan saarta ayba joogto madaxweynihii aan gacan siino laakiin walaalo cilladda maxaas ka jirtaan kuu sheega dagaalkii wejigiisii koowaad xawaad la galay ilaa 1,000 qofooda ku dhimatay haddana madaxweynuhu wuxuu rabaa dagaal inuu xawaadle geliyo oo 1,000 qofood iyo kale inay ku dhima karto xawaadlana diyaaro u yahay anaa kuu sheegaa diyaaro u yahay laakiin dadkii 1,000 qofood inay dhintaan damaanadeeda qaadi lahaay dadka maxaas madaxweynaha la jooga maaha go'aankaas hirshabelle ma bixi karto hiiraan state ma bixi karto saaxiibo siyaasadeed ma bixi karaan wasiir ma bixi karo xildhibaan go'aanka miisaanka intaas la eg qabiilaa bixi kara qabiilkane ugaasaa xukuma madaxweynuhu hadduu leeyahay ciidan dowladeedan keena waxay soo degayaan bayska la yidhaahdo maxaas halkaana laga duula macawisleyduna ha garab galaano waa la garab galaa ma xeebtaa lasoo taabanaa laakiin reer hebel waa diideen war adinkaa xoogaa mataqaanaa sow maaha go'aankaas ha u geeyo xawaadle ka jirtaa maa maxaas ma taallo xamaas inta timid iyo intan imaan waa ogtaha madaxweynaha waxa dhib ugu filan oo ilaa iyo xalay oo mashquul ku ahay hirshabelle iyo hiiraan state khilaafkooda soo maaha annaguna waxaan ka keennay yaan siyaasad la geli yaan hirshabelle la geli yaan hiiraan state la geli yaan waxaas dhan yaan la gelin yaan madaxweynaha tabasho la weydiinin yaan garaada la weydiinin yaan lacag la weydiinin madaxweyne sow inaan kula dirarna ma rabna haa